وصل 10 صدح بقول يا أفرط يا تفسيرك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وسورة الليل سورة الله يستغشناب سورة الليل كوبي الله باتنا أيضا ويه نبينا عليه الصلاة والسلام وحاو معاذ بن جبل فريي إنه صلاةها ضدك وتكني جهرجة سدا عشاء وكله وددka ku tukiya suuradaha kooban suuratu sabbih isma washamsi ya wallayl لأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ويددكي waxa ku jira dad kala duduwano iska duruufaysan qof daciifa iyo qof weyn iyo qof xanuunsanaya iyo qof muraad leh. suuratu layl waxay ka waramaysaa ugu horeynba dhaartii suuradahan ku badnayd gaagaaban iyo iyadoo ilaahay uu tilmaamay bani aadamka ifkan jooga inuu daba taagan yahay oo aan arrinkoodu ahayn jeeniga rogan. qofku macnaheedu ma aha in la ilaaway, laakiin tooshkii ilaahay waa hayaa, waa la daba taagan yahay. qiimayn baa markaa ilaahay uu saaraya. waxa uu xusayaa addoomaha iyo adduunyaduba inay gacantiisa ku jiraan. ka ilaahay iska dhisaana wuu liibaani, ka ilaahay ka fallaagoobana wuu adhax jabi. bismi illaahi araxmaani araxiim. wallayli habeenkaan ku dhaartay baa ilaahay u yidhi idaa yaksha, marka uu daboolo madoobaado, markuu khalqiga dabooluu madoobaado. wannahaari maalinkaan ku dhaartay, wannahaari idaa tajallaa, maalinkii baan ku dhaartay kolka uu iftiimo ee uu faydmo. wamaa ilaahii baan ku dhaartay khalaqa abuuray addakara labka iyo walunhaa dhadiga. intaasaan ku dhaartay ina sacyakum camalkiinu dad yahow la shataa wuu kala tegsan yaho waa isweydaarsan yihin. siduu u qaybsan yahina waa sidan. faamaa man acdaa qofka dhiibay ee bixiye wixii la faray, wattaqaa ilaahay ka cabsaday, wasadaqa rumeeye bilxusnaa tii wanaagga badnayd, fasanuyasiruhu waxaanu u sahli doonaa lilyusraa tii fududayd. wa amaa man qofka bakhila adeygay wastakhnaa kaaftoomay ee ilaahay yidhi waan ka maarmay, wakadaba bilxusnaa tii wanaagga badnaydna beeniye diiday, fasanuyasiruhu waxaanu isagana u sahli doonaa lilcusraa tii adkayd. wamaa yugni canhu waxba kama tarayo maaluhu xoolihiisu idaa taraddaa, markuu naarta kusii dhaadhaco, markuu dalam yidhaahdo naartu ku dhaadhaco, dee xoolihiisu waxba kama difaaci karayaan. habeenkiiyo maalintu waa laba daahiro, laba muuqaaloo yaa badan weeye, oo hadday maanta cusboonaan lahaayeen cajaa'ib loo dhiman lahaa, caalamkuna ka sheekayn lahaa. cibarka iyo cajaa'ibta ilaahay kownka ka muuqanayana wey. ku dhaarashada ilaahay uu ku dhaaranayaa la yaabka ay leeyihiin weeye. rabbinimada ilaahay bay ka markhaati yihiin, maamulkiisa wanaagsan bay caddaynayaan. habeenku marka uu daboolo idaa khashya alkhaliiqata bidulaami, khalqiga ilaahay marka uu madowgiisa ku daboolo, halkaa waa ka soo baxayo sidaa uu soo siqayaa buu qabsanayaa oo uu daboolayaa. kawaakibtii iyo meerayaasha falaga wareegayay ee istaba wareegayda ilaahay uu ka soo dhex saaray habeenka, sidaasoo dabeetana uu ku daboolay kolba intuu ugu talagalay. iyaba waa yaab. maalinkii baan ku dhaartay marka uu isna faydmo. habeen la arag yaaba maalin baa ku xiga.
maalinkiina habeen baa ku xiga marka qur-aanku yacidunaa aw yacidu quluubana quluubteenna wuxuu u baraarujinayaa aayadaha kowniga ahee insaan iyo jin cid sheegatay aanay jirin baa ilaahay in fara badan uu inoo jeedinaya dawaahir waxyaabaha daahirooyinka ee cajiibka ee muuqda ee cid sheegan kartaa aanay jirin ayaa ilaahay uu naga dhex tusaya awoodiisa la yaab kale isagaa isku dhaartay oo abuuray labkiiyo dhadiga wamaa khalaqa adakara waalunha sida faraha badan luqada carabiga ereyga man waxa loo isticmaalaa wixii caqli leh maana waxa loo isticmaalaa wixii aan caqli lahayn way isweydaartaan mararka qaarkood oo maana waxa loo isticmaalaa wixii caqli leh manna waxa loo isticmaalaa hayr alcaaqil mararka qaarkood marka allah weeye ilaaha abuuray labka iyo dhadiga wamaa khalaqa adakara waalunha waman khalaqa adakara waalunha ilaha labkiiyo dhadiga abuuray isagaa isku dhaaranaya rabbi labkaa iyo dhadigaasi dee waxay noqon karaan labadii laga soo abuuray basharka aadam iyo xaawa oo sidii aynu kusoo maraynay suuraddii hore laa uqsim iyo way isku mid noqon karaa halkan wamaa khalaqa adakara waalunha labadii laga farcamay ee sida gaarka ah had iyo jeer qur-aanku qisadooda u xusi jiray wabatha minhumaa rijaalan kaiira wanisaa labadii inta faraha badan khalqiga ilaahay uu ka faafiyey way noqon karaan adakar waalunha waa sunnat lxayaa labkan iyo dhadigan ilaahay uu sameeyey uu ka farcaminayo uu ka tarminayo khalqiga waa sunnadii nolosha waa ka ilaahay yihi subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha ilaahay baa ceeb ka hufan lamaanaha dhammaantii abuuray kanna waa lab kanina waa dhadig wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun laba nooc baanu ka dhignay wax walba oo lab iyo dhadiga sunnadii nolosha ayaa sidaa u soconaysa si wax waliba u jiri karo si wax waliba u dheelitirmi karo si wax waliba u tarmi karo sidaasaa ilaahay uu ka dhigay marka ilaaha awooddaa leh ee lab iyo dhadig abuuray si adduunyadii ay usii socon karto oo laysu dhaxli karo oo isbedelkan u iman karo ayaa labadaa u abuuray xataa markii adduunyada isbedelka uu ku sameeyey cahdigii nebi nuux calayhi salaam labkii iyo dhadigii ayaa la yidhi midba mid ka soo qaado si siidhka iyo taranku usii socdo doonida soo saar shay walba zawjayn lab iyo dhadig ka soo qaad sidii baa dabeetana tarankii uu kusii socday wamaa khalaqa dakara waalunha waa arrin runtii yaabkeeda leh oo labka iyo dhadiga kolka la eego xataa kuwa kale aan ahayn jiniyeysi ama aan caqligaba lahayn usluubka ay u nool yihiin iyo usluubka ay u tarmaan iyo usluubka ay ubadkooda u ilaaliyaan iyo usluubka ay isu difaacaan iyo waxoo dhami waa qadiya fitriya waa arrin la xidhiidha un wax ilaahay uu ku abuuray kuwa ugu naxariis badan ba carruurtooda iyo ooryahooda ayaa ugu naxariis badan kuwa ugu naxariis daran khalqiga alxayawaan almuftaris la yidhaahdo ayaa haddana ugu naxariis badan ubadkooda markaasaa siday dee sawjiyadooda iyo lamaananimadooda u wataan qaar badan baa bani aadamka bilaa iimaanka dhaamada bani aadamka bilaa iimaanka ah xayawaanada qaarkood baa dhaama siday u nool yihiin oo labkoodu isma waxeeyo dhadigooduna isma waxeeyo laakiin dee waynu arkaynaa maanta kuwan waxaad arkaysaa xayawaanada qaarkood xaaskiisa haddii laga taabto dil bay ku xukumanta reer daayeer oo kale haddii dee laga taabto middaa uu watee u gaarka ah wuu ursanayaa haddii wax uga uraan khalaas inta kale dhagax kula dilaysa markaa waa arrin fidri ah oo runtii muujinaysa tilmaamidan ilaahay uu tilmaamay iyo awoodda ilaahay iyo siduu khalqiga u dhisu u hagaajiya ka muuqanaysa wamaa khalaqa dakara waalunha ina sacyakum la shataa intaa markuu ilaahay kusoo dhaaftay wuxuu tilmaamay camalkeeni inuu kala tagsan yahay bani aadamku ilaahay la hadlaya dadii camalkiina uu kala tagsan yahay ha ilaahayna wuxuu qiimeeyaa un camalkeena qoladeenna ma qiimeeya camalkeenu qiimeeya in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun marka qadiyat alcamal wax sahlan maaha ina sacyakum la shata camalkiina wuu kala tegay waxaanay ahayd inaan camalku iskhilaafine dee addoomuhu isku duubmaanoo ilaahay unay ka tala qaataan ilaaha awoodda leh iyagaba abuuray mase yeeline dadaan miyir qabinoo waalanoo iimaan laawayaala soo baxay labadan ay u qaybsameen markaasaa dabeetana ilaahay isbarbardhig buu samaynayaa
xagga marka la eego dhaqankooda iyo xagga camalkooda fa amma man a'ta waxa qaabilsana wa amma man bakhila wattaqa waxa qaabilsana wastaghna wasaddaqa bil husna wa kadhaba bil husna fasanuyasiruhu lil yusra fasanuyasiruhu lil usra taasay subarbariyada dadkan caalamka ku nool labadan buu qaybsan yahay qiimayntii ilaahay uu saarayna waa taa adoomaha la yaqaaninta miirka qabaana dadka sidan bay u qiimeynayaan qofka horena waa qof la yaqaan oo doon ilaahay qofka dambena waa iblis yaqaan ama adduunyo yaqaan ilaahay ka go'ay umadu saasun bay u qaybsantay sida ay u sii socdaan marka ay doorashadan dadku la yimaadaan qofku nooceebu noqonaya hawiyadee iyo shakhsiyadee buu yeelanaya isagii baa doortay halku u dhaadhacayna ilaahay ma qarinina waaba ka inoo sheegayba maanta taaganta muftaraqu tariiq markuu ilaahay wama khalaqada kara wal unsa labkiya dhadigin markuu abuuray ee uu dhamaystiru aqli siiyay ee wixii uu ku hawlgali lahaa oo dhan uu dhamaystiray ayuun baa labada wada ka dooranaysa dabeetana kii uu doortaba wuxuu uga dhaadhacayna waa loo sheegay warkuba uu dhan yahay ilaahay wax laga gar heli karayaa ma jiro subxaanahu qofka bixiyay muxuu bixiyay mafcuulkii waa go'an yahay waxa uu bixiyay wixii looga baahnaayo oo dhan wax fara badan oo xil aba ina saaran oo ay tahay nicmooyinku ilaahayna siiyay oo dhan mid walba inaynu wax ka bixinaaba la ina faray an-ni'am oo ilaahay uu noogu deeqay oo noocyada faraha badan leh haduu adduun leeyahay waa looga baahan yahay qofkii acta inuu wax ka bixiyo haduu aqoon leeyahay noocay doonaysa ha ahaato diin iyo maadi waa looga fadhiyaa acta haduu awood leeyahay waa looga fadhiyaa acta hadii uu qofku leeyahay aqliya ilaahay uu siiyo dheeraada waa looga fadhiyaa inuu bixiyo kullu dhalik actaada waa soo galaya asxaabtu ridwaanullaahi calayhim nabiga way weydiiyeenoo marka sadaqada iyagu ka warramayo sida wax loo bixinayo iyo qofka waxa laga sugayo kolba in bay soo weydiiyeen hadaan helin waxaanu bixinaba bal ka warranbay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa tu'inu al-akhra waxaad saacidaysaa un qof itaal daran itaalkaaga waxaad ku saacidaysaa mid itaal daran hibaad ku saacidaysaa awoodaada waxaad ku saacidaysaa mid awood daran si labada awoodood ay isu kabaan لأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ولا عليه لا إلا حوجين يا ولالك بل كورن بيدان هدانا قفكي وحنا سينين وحنا كترين دي شركة قد كده يسني ساب تصاب وحدانه دادتك وحكتري وإذا وحيالا لادن كده فأما من أعضى لقو بسو كوبي كرا كلية سيدا نصوص تاسي فسيريسو أدون كلية أدون كل نعموين كل هاي بحيمت كميدوين marar fara badan ba arinku ka qaalisan yahay adduunka Soomaalidu waxay yiraahdeen cid wax ku sheegta cid wax ku siiso wada aragtaa laakiin cid wax ku sheegta ma heshi ana cid kula talaysa arrinka ka qaalisan baa la mararka qaar kood adduunka arrinku aqoonti waa la talinti idan marka acba naska caamka oo asaas macnaha caamka bay leedahay wattaqa إلهينا وكعصه سبحانه وتعالى وحولا بحنا يسبب التقوى وين إلا سعطة وحولا الله بحيا ولا قماح البحر ولا قمنا أمانة واحد بحساب كل أريسن كنا الدم باريس واتقى الله سعطة وصدق بالحسنى تي ونا يستندنا الرماية تي ونا يستندوا الشنة تي ونا يستندوا التوحيد تي ونا يستندوا التلمان إلهي انت بقى الله مفسرين وحول إلهي وكفري والحسنى تي ونا قبضنا يدوي وصدق بالحسنى كلمتي في عناية كل واقع لا إله إلا الله سيدا أي مدى قاركود أي كفة السران الحسنى وتشنو الرميسية أو وحا أقول ديانو عمل إنو قالت شنو لا إله الحسنى أيو الرميسية تي ونا قبضنايضا أيو آمنسيها وكوكنا عسيها أو أخلاق ذا وناكسنية قيم كفيعا فسنيسيره لليسرى أنا قلنا وحن بلن قادنا إذا إلهي ورتيسا لنيدا نسهل أدون كان وحن وافتشنا يا أخلاق ذا وناكس أخلاق ذا فيعنا فضل إياه نقل كفضل إياه فرج كفضل آخرنا الذي يسيب الله كاسواكا عمل كي بلن قاد كي إلهي بقى استبصوا على وأما من بخل واستغنى labadan baa istaba socdo qofku haduu bakhaylo macnaheedu waxa weey ilaahi uu baahnaabo ka goos ilaahi baa wuxuu leeyahay man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana ya ilaahi wax amaahinaya amaah wanaagsan
marka kol hadaad adeegtay ilaahay oo waan ka maarmaday ka dhiganta insaanka la yimaada dhaqanka noocaas ee bukhliga leeyahay intii aynu soo sheegaynay ku adeegay ku bakhayla si kale kolka loo eego bukhli inta badan waxa lagu tilmaamaa wixii faral ah oo qofku ka adeego waxna waa sunne waxna waa faral wixii faralka ahaa qof waajibka ku ahaa bixintiisa kolka uu ka adeego arin iyo aduunba naftiisa iyo ummadaba waqtigaas uu noqon kara bakhayl wakadaba bil husna horaynu soo fasirnay tawxiidku beeniyay aakhiro wanaagsan oo janno la ilaada inay jirtaabu beeniyay taladii ilaahay wanaaga badnayd buu beeniyay diiday fasan yasiruhu lil usra wuxuu ga dhaadhici doonaa ayaan daro waxaan u sahli doonaa dhibaato adduunyo waxaan u sahli doonaa akhlaaqdii adkayd waxaan u sahli doonaa naarta inuu ku dambeeyo wama yughni anhu maaluhu idha taradda xoolihiisu waxba kama tarayaan markuu naarta ku dhaadhaco xoolihiisu waxba kama tari doonaan macnahan ay aayaadku ka waramayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiistiisu ku fasiray xadiidta saxiixaynka ku sugan waxay leeyihiin asxaab sida cali ibn abi talib uu soo warinaya min xadiid al-bukhari fi al-bukhari wuxuu leeyahay nabigaanu la joognay iyadoo jinaasad lagu aasay xabaalahan baqiic la yiraahdo amba baqiic al-qarqad marka rasuulku ummadii buu la hadlayo waxa uu ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min al-janna wa maq'aduhu min an-nar qof kasto idin kamidaba waxa ilaahay hore uu sii qoray halka uu ka galayo jannada ka fariisanayo iyo naarta meesha uu ka fariisanayo ahlu naar iyo ahlu janna ku noqonaya way sii qorayn faqaalu ya rasuulallaah afala natak marka asxaabtu su'aal bay weydiiyeen waxay kor hadii arrimihiiba la dhameeyay kol hadii laba sii qorayba maanu iska tala saarana amalkaas oo aanu iska badaynaba amalka marka rasuulku wuxuu leeyahay i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah amal sameeya qof walba ilaahay wuxuu u sahlayaa meeshii loo abuuray amalkeeda kii janno loo abuuray wuxuu u heelaya amalkii jannada kii naarta loo abuurayna wuxuu u heelaya amalkii naarta halkaasay ka muuqataa qofku wadada uu hayaaba muujinaysa masiirkiisa iyo maqcadkiisa iyo meesha uu ku dambaynayo thumma qaraa rasuulka ilaahay wuxuu akhriyay aayaadka ila laga gaaro fasanuyasiruhu lil usra marka rasuulku wuxuu tilmaamayaa yusrigan ilaahay uu leeyahay kolba waan u sahli doonaa qofku meesha masiirkiisu yahay inuu amalkiisa u badan doono إن علينا دشيدا وحا هذا بلهي للهدى هنون كدشيدا هذا وإن لنا أننا إنو سغنات كريدا يلا الآخرة تدنبي والأولى هربا فأنذرتكم محندين كدغ يا با إلهي النار نار بندين كدغ تلظى هل عيس سداه العيس لا يصلها مغليو إلا الأشقى كي قول دريستا غلي الذي كاسو كذب بينيه وحي لفرين رماي وتولى سيجسدي وسيجنبها وحا كدرك الدونا الأتقى كي الله كعبسني الذي كاسو يؤتي ماله حوله سقوري أو بحني يتزكى يسقى اسنظيفين يو طهارة بادي دونية وما لأحد ومسقنا من قف عنده أكتيسة من نعمة كعن تجزى لقى أباليه عد كل هاي أبال وكأبال مرينيا ما جرت إلا ابتغاء وجه ربي إلهي سوتشي سنبدون يا الله ألعلى إسرين تبضمع إلهي سرية وتشي سيا درادي بولتش ذا وحبحنت ولا سوف هدوا ويرضى رالي المقندونا إلهي أطومها أي الله هذا يا سبحانه وعت الباب يا إن إستجا مرتيو جن نقدان وحي أي مودا يا أما أي دونا يا نقدان إن إستجا مرتيو جن نقدان هدي أي دين تتاعي يهدي أي دنيا تتاعي إن أنت إستجا جماعة هاس أفصلان مرتيو نقدان ساسويو أطون كمؤمن كاي هنكي ساوين وحوجي هاي وحول بين إلهي الله صمر إلهي وهايو marka ilaahay wuxuu weydiisanayaa adduunyada ilaahay wuxuu weydiisanayaa aakhiro qofkan kale hanka yarina ee aan alla rumaysnayna
ilaahay ma weydiisanaya marka hore wax adduunyu u ordaya aakhirana liiska uguma jirto sidaasi marka uu qofku rumaysan yahay wax badan baa u dhib yaraanaya si kale kolka loo eegana kolka uu adoonku dareysan yahay tilmaantan ilaahay uu siiyey wax waliba inay isaga gacanta ugu jiraan markuu taa aaminsan yahay waxay noo dhib yaraanaysa ka tala qaadashada aynu ilaahay ka tala qaadanayno aynu isaga adeecayno waayo waxaynu ognahay danteena inuu hayo ayaynu ogsoonnay oo wixii uu inoo sheegay wuxuu ina faray in maslaxadeenu ay ku jirto wuxuu ina siinayo inoo ballan qaado iyo wuxuu inoo qadaray iyo wuxuu inagu abaal marinayo iyo waxa uu sharciyaha uu inoo keenay intaba in danteenu ay ku jirtaa baynu garanayna inna calayna lalhuda dushayadu saaran yahay hanuunku haddii cid hanuunka la waafajinayo ilaahay baa waafajinaya mid is waafajin karaya ma jiro inna calayna lalhuda la bayaan alhuda hanuunka cadayntiisana ilaahay bay saaran ummaddu maxay ku halaagsanaysaa ummaddu maxay se ku hanuunaysaa taa ayaa la weydiinaya khubarada reer barigana lama weydiinayo khubarada reer galbeedkana lama weydiinaye ilaahay baa la weydiinaya subxaana wa tacaala ilaahayna wuu sheego muu qarinoo de waa kan kitaabkiisii aynu hayno ilaahay oo maxaa lagu halaagsamaya maxaa lagu hanuunaya uu kala sheegayba inna calayna lalhuda wa tawfiiq alhuda wa bayaan alhuda wa bayaan alxalaal wa bayaan alxaraam xaaraanta marka la doonaya in la cadeeyo ilaahay baa laga martiyay xalaashi ilaahay baa la weydiisanayaa in uu ku cadeeyo hanuunka waafajintiisa hanuunka tusintiisa waxay aad isku macnaayeen wa cala allahi qasdu sabiil wa minha jaahir wa cala allahi qasdu sabiil cala allahi bayaan qasdi sabiil jidka toosan cadayntiisa ilaahay baa isa saaro oo aniga igu haleeya saasaanay to markuu ina abuuray kolkaynu qaangaarnay sharciga la inoo dhiibay kolkiiba sharciga ilaahay inoo dhiibay subxaana inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samii'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafuran inna hadaynahu as-sabil wa hanuunkiyo la cadeeyay iyo waxa la isku xigsiiyay abuurkeen inna calayna lal-huda marka ayaan daro waxa inay dadku yiraahdaan maya waxa lagu hodmaye lagu horumaraya waa waxa ummad kale noo tilmaanto ee wixii ilaahay noo tilmaamay ma aha ilaan dadka hadii dhaqan afkaba ay ka oran inta laakiin hadii dhaqankii ummadda uu noqdo nooca waa ilaahay oo lagu dafreeyay ka dhigan diinteeni meel sharcigii samaawiga waxigii la raaci lahaa kitaabkii dadku iyagoo muslimiin ah shahaadanaya ayaa islaamkii qariib ku yahay nabi maxamed wuxuu sii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu islaamku qariib ku bilaabmay qariibna ku noqon doono bada diinu qariiban wa sayaudu qariiban kama bada fatuba lilquraba alladina yuslihuna ma afsadahu an-nas qaraabadii barigii hore nooc gaar ah hay'ado shahaadada iyo diinba wala la yaabsana laakiin imika qofku isagoo islaamnimadiiba ku faanayaano haddana garanaynin waxay wuxuu sitaa duuba weyn oo islaamnimada laftigeeda uu ku garaacayo oo cid kale u soo dhiibtay ismana oga wala yadri annahu la yadri wa musiiba weyn la yadri annahu la yadri isma garanayeen aan wax garanaynin hadduu isgaranayo qof ama ummaddu ay isgaranayso inaanay wax garanayn waxba loo sheegi karaa laakiin hada marka aan ogeyn inaan wax ogeyn ayaa daawadiisu adkaanay mar alla marka la yiraahdo diin ilaahay iyo hidaayada ilaahay la soo qaado dadkeenu maxay oranayaan war bal imika irhaadiya waxba la hadal hayaaye iyo qaar kale oo la haybsanaye sharciga iyo arrimaha iyo barharta inta la qodobaynayo iyo intay waqti gaaraysa iyo intaynu adkaanayna iyo intaynu ba soconay intaynu daasa aad u badanaysa marka waxay ku sii dhawaanaysaa intaynu halaagsanayno ayay ku sii dhawaanaysaa allah ina hanuuniye inna alayna lal-huda sida ibn kathir ku fasirayo inna alayna an nubayyana al-halal wal-haram adalasan idin kala cadeynayna xalaashiyo xaraamta kala cadeyntooda ana martiiga tiin weey man salaka tariiq al-huda wasala ila Allah waja'alah min ahli al-jannah wa inna lana lal-akhirata wal-ula annaga iskala aakhiraya adduunyada gaaladu ma leh qolada 8 ah iyo qolada 5 ah istiriya ila barwaaqo sooran kaamnayna ma leh ilaahay baa leh adduunyada subhanahu wa ta'ala aakhirana isaga leh marka ka ilaahay adduunyada xalaasha weydiista uu ka helaya umada weydiista ilaahay marti uga noqon aakhira cid weydiista way ka helayaan saasa ilaahay u adkay ana leh qaar kale ku raadaan annaga leh
meeshan anaga kawka oo hubkeeda qadina oo qadina raashinkeeda oo lacagteeda oo taladeeda oo shirarkeeda ilaahayna wuxuu leeyahay inna lana lal-aakhirata wal-uula ilaahay waa runta annaguna waana kana waa ku sugaynaa kolkaynu ilaahno ayaa ay cid walbana inaga joojinaya cid walbana inooga heelinaya hanuunkeenana aynu helayna wa inna lana lal-aakhirata wal-uula mar hadday caynkaa tahay isagaa laga tala qaadanaya faandartukum naaran talada digniintiis waa waxa ugu daran ee dad looga diga waa naar cadow iyo cid kale iyo gaajo iyo faqri iyo waxa maamulada jira hadday dadka kala halgamaan naar wax way waa markay u abuurayn marka loogu tala galay bani aadamka loo abuuray waa ummad kasta oo hogaamintu hawshooda u muhiimsan waa taa wala nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wa andir ashirataka alaqrabin dadka intaanad gaarin horta kuwan kugu dhow dig isaguna baaqi qofka cadowgu markuu soo jahaysto baaqi lagu baaqi jiray buu ku baaqi isagoo taa uga digay faandartukum naaran talaba haddaad faqriga dadka uga digto oo jahliga uga digto oo aad uga digto cadow ku soo dhow laakiin intoo dhan ba la ilowsan yahay cadaabkii ilaahay waxa la wax faa'iidaha ka soo baxay halka ma jiro لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى نار توحى قال الأشقى كقول درها ضبضا قف قول درها أيضا ما تا نار قال كاسو بينيه وحي لفري إنه رمايو سينة يتسوي وحي للدونة إنه ساقابله تولى كذب بالقلب وتولى بالعمل عمل هان مركا لقاو سيجيس قلبي جينا وكبين نار إيمان لاوي waa isku qolo waa ardaydeena waa ehelkeeda waa asxaabteeda dadka camiraya waa iman laawayaasha kowka ah alladhi kadaba wa tawalla qaybtan dambe aayada waxay ku soo degtay bay u badan yihiin mufassiriintu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardaa Abu Bakr Siddiq ayaa ay ku soo degtay وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة وحكى ديرانيا كي تقوى الضباء الذي يؤتي ماله يتزكى حولي سبحنا يسوع استنظيفنا وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد قفنا ومسقنان عنده أكتيس من نعمة أضال تجزى لقى أضالية قف كلها أضال أو أضال علني يا مجر عد أيضا أضال لقولها ينبوحي سبحين إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلهي وجه سكر هذيني ابتغاء مرضات الله ولا سوف يرضى وحكى لدى يوحى ومر خاتف فري العدو نيكي حتى عدو ها أيا ومر خاتف فري أبو بكر عروة بن مسعود نيكي لورني قال انت رسولك صلى الله عليه وسلم قال له أي كعليين ضليتك أمام مكة أكتير سلح الحديبية السندي لحاد الشيء سبيل قرتين إلا يهمه وقالنا المكة قشاه iska noqo sanadkan sanada 7 iyo wax soo cumrayso waan isbuujinaynaa way macnaha sanadkan anaga isbuujinaynaa fiisa kuma naan dhufanina waan kugu soo celinay iska noqo nimankii wada hadallada la galayay kolban baa loo soo diray kolban marka nabiguna uu maacuudinayo arinku celcelinaya wuxuu la war dagaal uma socono cumraan u soconaa beedkan ilaahay nagu sii daayay ma halkaas iska noqonaysa macageelaaga iyo waxa wadato dhan waxaan uga soconaa taas waa qisada dheer sulhul hadiiba suuratul fath bilowgeeda inuu soo marnay oo kooban ninka isaga oo reer Taqiif madaxdooda kamid aha markuu rasuulka la hadlayay wuxuu ku yiri Maxamedow gaashaanbuur baad soo urursatay dad dalabaho isku deejilibaho isku qolo ama hadii dagaal bilaabma hadda way firdhan doonaan oo midba meel buu ka dhacay gaashaanbuurtan aad isu keentay qobtolka ah Abu Bakar ba aad u caayay markaa luqad adag buu kula hadlayo sanamkiisii iyo isagiyo wixii oo dhan buu isku caayay luqad aan ku hadli jirin buu ku hadlay laana diinta Ilaahay buu xanaaqaya marka waxaan uga soconaa ninkii waxa uu ama wallahi lawla yadun laka indi lam ajika biha la ajabtu wallahi hadii abaal aad igu lahayd oo aanan kaaga jawaabin aanu jireen waan ku jawaabi lahaa laakiin gacan baad igu leedahay oo mar hore aad xisiisay tiina marna kaamaan abaal marin marka taasaan kaaga xishoonaya laakiin jawaab adag baan ku siin lahaa Abu Bakar marka ninkii meesha sayid Taqiif ah ee qolada madaxda haduu abaal ku leeyahay fuqaradii maxaad malay
muslimiintii maxaad u malaysay mustadcafiintii maxaad u malaysay uu mutaysteen uga jeednaa abaalmarinta noocana waxaan ku soo maraynay suuradii hore ayaan ku soo marnay adoomaha uu xoreeyay iyo xoolihiisa inuu ahaa ninka kaliya ee mar wada degay maalkiisa haday khamriilayaash bahalahan aan qamar walayaash hadii aad maqli jirtay nin baa mar qura maalkiisii wada degay oo macamrihiisii dhigay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu mar qura maalkiisii soo qaadayo markaasuu nabiga wada hor dhigay waa marxalad aan cidi gaarin marka waa mutaysir radiyallahu anhu wardaahu inuu ilaahay astaan oo amaano wala sawfa yarda hadda uu raali noqon ballan qaad weyn weey ilaahay baa ballan qaad wuxuu raali noqon doonaa adduunyada oo adduunyada raali noqoshaha waa la helaa marka ilaahay laga tala qaato ee adoonnimada qofku xaqiijiyo wuxuu helaa raali noqosho adduunyo oo wuxuu ku raali noqonayaa noloshiisa oo nolosha macna u sameynaysa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba noloshii wanaagsaneeyda ilaahay uu sheegay alhayatu tayyiba alhayatu sa'ida ayuu helayaa wala sawfa yarda halkan way noqonaysa ma ha qura aakhira uu raali noqonaya oo wuxuu ku biirayaa ku ilaahay idin raali noqoteen ayiraha radiyallahu anhu maradu anhu ya ayatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya waxa marka muhiimahu in la ogaado adoonku markuu ilaahay ka tala qaato noloshiisa adduunyaduna macna ay leedahay way u macaanta ilaahay idankii mu kagu cudur badan ee ugu faqri badan noqdo duruuf adag kasaha haysato waa mabsuud waa farxaan laana aamaal buu leeyahay wuxuu garanayaa wuxuu u nool yahay meeshu tagay wuxuu dhan buu garanayaa wala soo fayarda aakhirana waa raali noqonaya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam maalmaha kamida waa asxaabta isagoo jibba gelinayay ummadiisa ayaa wuxuu ka sheekeeyay jannada iyo albaabadeeda iyo qiimaha iyo macaanka iyo waxa meesha ku dambeeya markaas wuxuu yiri dadka sadaqada ku caanka ah waxa looga yeeray albaabka sadaqada dadka soonka ku caanka ah waxa looga yeeray albaabka jannada oo laga soo dhaweynaya dadka jihaadka caanka ku ah waxa looga soo yeeray albaabka jihaadka qofba amalkii uu ku baacdeeraa ama uu dadka kale kaga fiicnaa ayaa malaa'ig gaara iyo meelo gaara laga soo dhaweynaya marka dabeetana hankiisa weyn daraadeed buu su'aal aan cid kale weydiin buu ka gaarsiiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu nabi Allah waan ogsoonahay inaan wax dhibaato ah la kulmaynina ma jira qof intoo albaab mar kaliya looga yeerayo oo la isku qabsanayo suuqii suxaamiya hal xaggan kaale malaa'igtu wada yeerayaan marka nabigu wuxuu yiraahdaa waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto waa uu ku dhuftay halka kaarka waa waxaan rajaynayaa wuu jiraa wuu qof intoo albaab mar kaliya laga wada yeerayo adaana kamid abu nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaynu uga jeednaa marka waa tusaale Abu Bakar laakiin waa tusaale nool lagu dayanayo oo taariikhdiisu ay khaalidka quraanku xusay waana caan sababtu isaga ha ahaatee culimada tafsiir saanka qowd maqaaladooda in al-ibrata bi'umumi lafzi la bi khusuus sabab maska caamnimadiisa la eegaya sabab khaas ah haduu ku soo dagay waxa la eegayaa un daliilkaas caamnimadiisa lagu xisaabtamaya wala sawfa yarda marka raali noqoshaha iyo farxadda iyo nolosha sacaadada leh aynu baadi doonayno halka laga helayaa ilaahay uu noo tilmaamay subhanahu wa ta'ala suuradan la ilaa suuratu duha makiyya wa ayatu 11 suurada 3 wa suuratu duha waxa ay kamid tahay suuradihii makawiye oo in kooban mooyaane quraanku intiisa badani waxa weeyaan maki in kooban baa madaniya suuradani waxa ay la xidhiidhaa nabiga kaleey salaatu wasalaam iyada ku xigtaa la nashraxba farxad bay u sidaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo cadawgii u dayriyay nabiga oo ilaahay ka dhicinayo wuxuu ilaahay u yawaah iyo wuxuu ilaahay u taray wuxuu dhan bay sheegaysaa waxay soo degtay waqti waxyigu kala go'ay waxyiga ka raagay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxyiguna de waa quutul qulub quutka qulubtu waa waxyiga hadii raashinkani uu yahay energy-ga iyo tamarta jirka quudka had iyo jeer
qulubtuna iyo ruuxduna waa waxiga ilaahay baa wuxuu tilmaamay waxigaasi inuu ruuxdeena ruuxu siiya hadduu jirkeenu ruuxda ku nool yahay ruuxdeennuna waxay ku nooshay waxiga wakadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلهي وحو تلمامي نلال إيا النور أي وحي يكون تلمامي وروحا من أمرنا نورا والنور إيا نلال هذا سوحي لغس فيه وحا الروح بقى إلهي وكون تلمامي القرآن كيبا الروح بقى نكبسو دجنيبالي لأنه روحا القرآن الله ينسوق الفوف معه وهو الفوف انت يدونتها حب بدناتها عطاتها أنها مدولاتي وقل فوفون لذلك بقى أي تقفك مسلم كينا عن القرآن كإلهي كقرب كالبيت الخرب قولي خرابة أبو النبي كنت المامة يقفك قلبي القرآن كقرب ضوئنا وما يرى مضحها ورعيضها ما القوانها وفقيرها وحي أهل النقود مرات برانيسو يا مرات برايسو يا مرات كعب عليسانيسو يا مرات دقيسانيسو مر والبا وحي كأكفغان هذيك لقلبي ملمية والدحلك أي ضغيلها ساتشيرية marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam maadaam quudkaasi ka raagay aad buu murugooday nimankii gaalada ahana way ku wiirsadeeno waxay yiraahdeen waa kan ilaahiisi uu dayacay oo iskaga tigay waa taqalahu rabbuhu wa tarakahu wa wada'a maxamed ibrahim wax cusub maayo ilaahiisi uu wadacay oo ka tagay bayna tiibay ku celceliyeen ilaadow kuma ture adawgu haduu lugta kula baxo uu ku sii lagdiyo oo kugu tuman oo haanku ku goyn marka sidii bay dadana hal bootaalaha ayay ku celceliyeen oo way ku wiirsadeen oo isaguna waa warwaray arrimahan ilaahay soo raaciyay marka subhanahu wa ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim wadduha waxaan ku dhaartay ilaahay uu barqinka wallayli habeenkii baan ku dhaartay ilaa saja markuu madoobaado ma wada'ak kama tagi rabbuka ilaahahu wama qala ay wama qalaka كوما نعرون ولا الآخرة آخرة أو جنة أهنا خير لك ويكاغا ونكسنت من الأولى تنهر رئيساء الدنيا ولا سوف هدوب يعطيك كسين دونا ربك إلهاغ وحيا دونا سوف ترضى مكاسر هالي النقل ألم يجدك ميان كهل يتيما أذيغو أغانا فآواك وكسور دوي ووجدك إلهي وحكو هلي ضالا أديقو هلوصنو فهدى مركاسوكو هنوني ووجدك وحوكو هلا عائلا أديقو فقيره فأغناك مركاسوكني كاردق فأما اليتيم أغونك فلا تقهر هدرقينو هكذين وأما سائلك وحكوي دي السنة فلا تنهر ههروفنو هقولقولي وأما بنعمة ربك نعمة إلها وكسية دين توه الرئيسانة فحدث كم هاتنا الحمد لله وشكر لله الضحى وكليكي ومالك يوم بكتر جميس برقنك وحلا وشيء يا مالك ووقتك وأصافي سيء ونافسيه مالك ديلا حركة دكتيس مركب مالك تبى لو فسر يا برقدي وأسلاء سوقا بالسناين صورة كهر رئيسنا نسومرين الليل والنهار سيدنا هل كنا قرح دي كليل كادي يا مالك يفتين كادي يا هبين كي يمركم مدواه mar walba taa inaad eegtaa waa muhiim oo ku dawakhin leerkan magaalooyinka iyo taariikhdiisa iyo leerka baabuurta iyo bal halka madowga u yara baxay habeenkii waxa loo baahan yahay inaad aayaadkan kawniga aayaadkii quraanka oo inagana wayna akhriyeena wala budda an naqra safahat alayat fi safahat alkawn aayadaha xaashiyaha caalamka ku qoranna idii aayadahan quraanku ay tilmaamayaan waa inaynu akhrina nabi maxamed uu akhriyo alayhi salatu wasalaam qabla an yaqra alayat almunazzala كان يقرأ الآيات الكونية هذين كنتم بنان كاو بحاضو آيات كا إيجي ترى عركة إيه دولك إيه قرحة إيه معنا حدقها إيه ساس ويجية فقصد بيتنا إن في خلق السماوات والأرض آيات سو آخرين وحيالا قفك قفلت كل ذوي هتو قفك اعتباري يلون وايو آيات كان كوني قابا ويجي وايلا ولا والدي حيوتا قارم وابو ويهاي وطا بشو قارم دلات وضح حديقتاس مية جري لما بعد آخرين بحاشية عالم حاشية كونك بعد آخرين بقى مركا دارتا كدب صدح الرماد أيها رب سبحانه وتعالى نبي قوقو بشاري
saddex arrimoodna ugu manno sheegtay saddex arrimoodna uu amray intaasay ka koobantay suuraddu dhaarta dabadeed saddex arrimood baa ilaahay ugu bushaareeyo maa wadacaka rabbuka wamaa qala walalaakhiratu khayrun laka min aluula walasawfa yucطiika rabbuka fatarda saddex arrimoodna wuu ugu manno sheegtayoo alam yajidka yatiiman faaawa wawajadaka daalan fahada wawajadaka caa'ilan faaghnaa saddex arrimoodna waa la amray isagoo ka jawaabaya waxaa loogu deeqayoo waa saddexda aayadoode ku xiga intay sheegayaan faama alyatiima falaa taqar waama saa'ila falaa tamd waama binicmati rabbika faxadid saasay u socota waxba uma hadhin rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid lagu tilmaamay inuu sanadkiisu daciif yahay ayaa waxa uu tilmaamayaa markii uu suuraddaa dhegaystay inuu aada u farxo takbiir uu bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka qolada cilmi alqiraa'aadka waa ilaa heer xasan bay soo gaadhsiiyaanoo waa kuwa yidhaahda suuratu duxa inta ka dambaysa takbiir bay leeyihin oo suurad walba marka la dhammeeyo takbiir ayaa dhammaadkeeda la akhriyaya siiqadeedu hab ay noqotaba qolyaha xadiidkuna waxay yidhahdeen culamaau takhriij sanadkiisu ma gaadhin heerkii lagu daliishanayay lidaalik markaa ma sugmaysa takbiirtaasi almuhim waxaynu uga jeednaa inuu nebigu ku farxay calayhi salaatu wasalaam deeqdan alleh ee ilaahay uu siiye aynu soo tilmaanay maa wadacaka rabbuka wamaa qala waa erayadii ay yidhaahdeen gaalada buu ilaahay difaacay ilaahay kaama tegin oo kuma sagootiin kumana cadhoonin ma ihid kii labadaa ilaahay kula dhaqmi lahaa cidda ilaahay uu sagootiyayo ee uu ka tegayo garabkiisa uu ka baxayo ee uu cadhoonayo waa ka soo horjeeda nebiga innaa acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar ka kuu cadhaysan waa goblan adiga hadduu ku yihi waa goblano waa bilaynamo isagaa goblana ayaa ilaahay wi marka haddii uu adiga ku yidhi waa ilaahay baa ka tego u cadhooday isagu ilaahay ka tegay oo u cadhooday waa bushaarada koobaad marka soo dhowayntii ilaahayna waad haysataa raali noqosho ilaahayna waad haysataa walalaakhiratu khayrun laka waa bushaarada labaad aakhiraa kaaga wanaagsan adduunyada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu adduunyada joogay dee uu kifaaxun buu ku jirayba maba nasaninba 10 sano madiine joogayo 18 dagaal buu isagu galay intuu asxaabta diray dagaaladu ilaa dhowr iyo 30 bay ahaan galay marka culweynaha iyo colka gaalaha la tiriyo 18 dagaal bal u qayli 10 sano uu isagu joogay marka 6 biloodba waa inuu dagaal galay waa intuu isagu baashiray ee uu ka qayb qaatay way qasawaadka cilmiga siirada iyo qasawaadka u noqo 18 kaasuu ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam gacan qaaday colka hogaaminayo isagu taliye ka ahaa baxay hadaa adigu fadhi weyna tahay halkaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam halkaasuu kifaaxa adduunyada ka sii waday inta isagu uu ka harayna waa jirto de asxaabta uu diray ama col kooban ahayd ama col weynaha way iyaguna way jireen marka taabka macnaha halka uu ka taagnaa iyo hawsha uu nabigu ku jiray calayhi salaatu wasalaam asxaabta bariidana kolkay ka faaloonayeen ayaa waxay arkeen raashinka la cunayo iyo noocyada markaas waxay lahaan qaarkood wallahi inaan weligiiba kiista nabigu cunin nabigi ilaahay khalqiga u fadliga badnaa maanta taa aynu haynay saafiga ah bil abuunshaha cad ee noocaasa weligii rasuulka ilaahay ma dhadhaminin waxa uu ku jiray nolol kifaaxa oo ilaahay loogu dhawaanayo oo aad iyo aad duruufteedu ay ugu adkayd rasuulka sallallahu alayhi wasallam isaguna uu doortay Abdullah ibn Mas'ud ayaa waxa uu leeyahay maalin maalmaha kamida ayaa rasuulku waxa uu ku jiifsaday baashan la ilaa xasiirku waa cawdan la falkiyay laga tolay geedkan markaa caleenta laga tolay marka dhinaciisiiba ay ku dhagtay oo ay u yeeshay raad jirkiisii ka muuqanaya dadna waxaan ku yiri wallahi dib buu ku geystay waxa fiicnaan lahayd inaanu ku sameeyno furaash yar oo dhinacaaga u roon markaas nabigu waxa uu lahaa maali wali dunya inma mathali wa mathalu dunya karakibin dhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha hadithkaas tirmidhi baa warinaya saxiix aniga marka la eego sawirkayga ka adduunyada kolka la isoo waxaan ka dhignahay qof safar ku jira geed yar haraystay oo go'a yar saaray ama dalaalimo xoogaa yar saaray harsaday inta walwal ku soo dhacaya ama qorraxdu qaboobayso
markii qoraxdu ay qawowday casarkii la gaarayna ka dhaqaajiyay dee qofkaasi urubana uma taagayo gidaarana ma dhisayo ee geed yar unbuu go' saaraya si uu yara harsado khalaas dabeetana waa kasii dhaqaajinaya xaaladaydu caynkaasi ka dhigantay nin ku xiiqaya maahee waxba ha iga nixin buu leeyahay waxyaabaha adigu arkayso walal aakhiratu khayrun laka min al-uula qofka mu'minkaana guud ahaan bee nabigiisa ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam raad guraya taladiisa qaatayna isaguna bushaaradan wuu helaya jinaasad buu arkay la wada nabiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa imaa mustariixun aw mustaraax jinaasadaa la sii wadaa ama waa qof raaxaystay ama isagaa laga raaxaystay markii la weydiiyana wuxuu ku fasiray hadduu yahay addoon wanaagsan oo ahlu jannaa isaga adduunyada ka raaxaystay walal aakhiratu khayrun laka min al-uula hadduu yahay mid dhib low oo ahlu naarana dee raaxa uma talo imku rafaadu bilaabmayaaye ummadii ilaahay baa ka raaxaysatay ilaa qofka mufsidka ee dhulbiiska ahlu naarka ah halkana naarihiisu dadka la dhex jooga dhimbiila ka duulaya oo waxaan sharaxayn dadka ulama yeela waa laga raaxaysanaya marka kaana saas uu fasiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka qofka muuminka ilaahay suu naxariisto subhanahu wa ta'ala adduunyada waxa uga khayr badan aakhira ayaa uga khayr badan janna mu'abbadaha oo ku waarayo ayaa uu leeyahay wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda wa bisharada saddexaad hadhow buu ilaahaagu ku siin doonaayo markaas raali noqon maxaa la siinaya adduunyadana wuxuu doonayaa la siinaya aakhirana wuxuu doonayaa la siinaya adduunyada waxa la siinaya diintii ilaahay uu soo halgamo hirgasha iyo nuurku umada ku faafinayo wada gaara waqad wajada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam u'tiya nabiga waana la siiyay ilaahay waasiiyay maalintii uu dhintay rasuulku sallallahu alayhi wasallam asxaabta waxa tukinaya Abu Bakar Sidiiq oo umada uu nabigu daa u khaliifuu Abu Bakar haydin tukiyo gurigiisa oo markaa nabigu jiifayna guriga Aisha ayuha daaqad baa uga furnayd masaajidka uu isa soo taagay daaqadii wuxuu eegay salaadii loo aqiimay ya asxaabtii oo taagan ya Abu Bakar oo tukinaya iyo safkii oo sidii uu sameyn jiray kala loo sameeyo la qurxiyay intuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam halka u eegay ayaa waxay yiraahdeen asxaabtuna waan wada faraxnayo wadnaha goy gaadin rasuulkii ka qoosteen baas hanqalka la soo kacay marka waxaan u aragnay inuu caafimaaday waan ku fitnoobi gaadin kadibna uu jiifiyay dibna waan aragnay marka waxaan uga jeedaa uu qoslay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sababtu la qoslayna waxay ahayd amaanadii iyo xilkii iyo risaaladii oo laga wareegay buu arkay sidii uu wadayna loo wado hogaamintii halkeedii ka socota markaas uu ku farxay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagu maali wax kale kuma farxayna taas uu ku farxay wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda saddexda arrimood baa ilaahay ugu manna sheegtay raali noqoshahana oo inuu soo sheegno waa raali noqoshaha adduunyada iyo ka aakhira labadaba ilaahay wuu siiyo ugu deeqay arrimahana ilaahay ugu manna sheegtay sida lagu dayacaaway intanaada ilaahay uu ku soo sameeyona cid kale ka helin ilaahay muxuu ku dayacaa ha dhageysan gaalka way hadalkiisa ha dhageysanin intuu ilaahay ku dayacana ilaahayna xaqiisana ha ka warwarin oo ha saluugin de arrimahana ilaahay ku sameeyay imtixaan baa bilaabmay alam yajidka yatiman faawa ilaahay miyaanu ku helin adigoo agoon oo ku soo dhaw adigoo agoon oo abiyo hooyatoona aanay jirin ayaa halka uu ku gaarsiiyay rasuulkii ummadda iyo rasuulkii caalamka ayaa uu ka dhigay ilaahay adigoo agoon ah erayada oran jireen ku duri jireen nabiga ayaa ilaahay mid kala waayay muxuu rasuul uga dhigay quraankan la sheegay muxuu ugu soo dajin waayay oran jireen ala rajulin min alqaryatayn azim nin weyn oo labadan magaalo Taif iyo Makka kamida intee nin joogta ama suldaana ama cayaanta kamida ama magac leh adoonkan in Abdullaahi ciidaan hay mi waay dadka hadiya jeer markay harawsanayaan indhow garadka ah ay waxa ku urgufi jireen kaasa ilaahay wuxuu alam yajidka yatiman faawa ilaahay risaaladiisa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ilaahayna taasugu jawaabay loo tilmaamay ma yaalku ilaahay risaaladiisa dhigayo wa wajadaka dhallan fahada adaha law sanbuku helayo markaasuu ku hanuuniyay طبعا halku maanta taagan ee markaa muu taagnay halku maanta taagan yahay kolka loo eego halku bariga taagnaa aan rasuulna laga dhigin waxayna lagu soo dajinin de wuxuu yeelanayaa inuu daalan ahaa qaal mu ahayn rasuulku sallallahu alayhi wasallam laakiin waxa weeye milgaha iyo mustawaha maanta taagantay maalinta ma lahayn magaca iyo mustawaha iyo macnaha iyo waxaad maanta leedahay ma lahayn
wawajadaka daalan fahadaa adigoo aan rasuul ahayn ayuu ku helo markaasuu ilaahay kugu hanuuniyey risaaladan iyo waxyigan iyo ruuxdan si aayaddii aynu soo akrinay ay tilmaamaysa aayadaasaa tilmaamaysa aynu soo akriyayn wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri daalan waxaa fasiraysa maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan kitaabna maad garanaynin iimaanna maad garanaynin macnaha saad maanta u garanayso laakiin intaa iyo intaa iyo intaaba anaa ku siiyey halkaad maanta gaadhay berigaad maad gaadhay wawajadaka daalan fahadaa waxaad halkaa ka arkaysaa ammaan kasta ha yeesho akhlaaq kasta ha yeesho caqli kasta ha yeesho cidduu waxyigu ka maqan yahay tilmaan nebi maxamed baa layidhi markuu waxyigu kaa maqnaa daalan baad maxaad u malayn adigana maxaad u malaynaysa marka insaanku si kasta oo wanaagsan ilaahay waa buuro caqli kasta ha lahaado cilmi kasta ha lahaadee mar hadday diintu ka maqan tahay wax baa go-an waxdii u muhiimsanayd baa go-an neerfihii qiimaha badnaa waa baktiisayn wawajadaka caa'ilan faaghnaa ilaahay wuxuu ku helay adigoo muxuu ku dayacaa oo cidlo kaaga tagaa adigoo faqiiruu ku helo qani buu kaa dhigayde hadda rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu geeriyooday xoolaba kama tegin wuxuu ka tegay un dharkii uu xidhnaa iyo qalabku ku dagaalami jiray wax allo wax kaloo laga dhaxlayba may jirinba nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolaba ma lahayn cashaawaqadana waa iska ahaa wixiisii oo qaadaama dhergu ahaa haddaynu qaadaama dhergaha isku cayno oo la idhaa ninkaa hebel waa xayraana waa qaadaama dherge qaadaama dhergahaasu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam marna wuu helayaa marna waa waaya markaasaa la iskaga seexanaya mar dhagaxbaa beerka lagu xidhaya mar isagaaba wax yar la siinaya oo ka qaadaama dhergahaasu ah markaase haddana ilaahay uhi qani buu kaa dhigay qaninimada laba ah qaninimo maalka ah iyo qaninimo qalbiga ah keebuu ahaa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qinaau nafs wa qinaau lqalbi qaninimada nafta iyo tamaalka ayuu rasuulka ilaahay lahaa calayhi salaatu wasalaam laba qaninimaa jira istignaaun bilmaal wa istignaaun can ilmaal midi waa sifada khaaliqa midina waa sifada makhluuqa istignaa bilmaal in qaninimada uu qofku ka raadiyo bahashan aynu aragnay ururinteeda iyo akoonku shubidda ayuu qofku qaninimada ka baadi doonaya iyo inta uu isu saaro cidina qaninimada waxay ka doonaysaa istignaa can ilmaal maalkaba inuu ka maarmaba oo gebigiisaba uu ka kaaftoomaba idan markaa ilaahay addoomihiisa wuu ka maarmaya wixii ka soo hadhay sifadii khaaliquu markaa qaatay rasuulku sala allahu calayhi wasalam tilmaanta takhalluqu biakhlaaq illah tilmaantii khaaliquu qaatay oo ah annahu istagnaa can ilmaal wa can iddunya waata aynu xadiidkii soo akhriyayna markii dhowey waxaa la yidhi ma waxaa lagaa dhigaa rasuul meliga oo boqora sidii nebi sulaymaan oo kale mise waxaa lagaa dhigaa rasuul aan waxba haysanin oo adduunyada iska dhaafay mee ka dambaan doortay buuli kaa hore baan dooranay marka waxaynu uga jeednaa labada qaninimada muhiimsanina waa taa qaninimadan kale haddii qofku uu adduunyada xoolaheeda kala badh leeyahay oo milyaneer uu yahay oo waxa uu kow yahay adduunyada oo laakiin dee qaninimadii qalbigu ay ka maqan tahay wax kale iska daayo dharku xidhan yahay qobtulka weeg dharku xidhan yahay ayaanu dareenaynin waxa uu yahay wuu gubanaya waa gubanaya waxaa laga yaabaa qofkaas inuu istilo waynu aragnaa adduunyada dadka had iyo jeer ugu warwar badan ee ugu cudur badan ee ugu balaayada badan ee ugu cabsida badan waa dadka ugu xoolaha badan iyaga ugu kakan sidaa daraaddeed qinaa'u nafsi baa muhiima qinaa'u maalna marka uu qinaa'u nafsi ka maran yahay waxa uu qofka ku keenaa halaag buu ku keenaa idan markaa islaamkeena wuxuu ina barayaa qofka qaniga laftiisa maal qani ku ahay in qinaa'u nafsi uu yeesho hadduu kaa waayo uu halaagayaa maalku wasaynu ku arkayno suuradaha qaybahooda kala duwan halaag buu horseedaya qof sidii kii qaaruun oo kale wawajadaka caa'ilan faaqna saas weeye faqiir buu kala markaasuu qani kaa dhigay arrimahana markaa la faray fa ama alyatiima falaa taqhar agoonka ha qahriin wa kaanat aljaahiliyatu taqhar alaytaam jaahiliyadu had walay joogtaba agoontay dirqidaa waa tii aynu soo maraynay wata'kuluuna turaasa aklan lamman dhaxalka ayaa cuntaan cunitaan aad u badan oo catuuga ah ayaa cuntaan marka qahrul yatiim waa wixii soo laga qaado adoonkii ayaa dhaxalkiisii laga qaadaya wixii aabihii uga dhintay oo magtiisii laga qaadaya oo marka ay maalkoodii iyo maalkan kale isku daraan inta xun bay agoonka siin jireen oran jireen intaasi weeye intaadi inta wanaagsan ayaga qaadan jir suuratu nisaa qaybaheeda hore ah fa amar yatiima fala taqhar waa ciddii ugu jilicda sanayd bulshada
ayaa waxyiga ilaahay u dhexdeeda waxyiga dhexdiisa ilaahay ku xusaya maatida agoomaha iyo fuqarada iyo dumarka iyo dadka ugu jilicda sanba waxyigu aad u dardaarmay waa diinu rahma diintii naxariista way iyo badbaadada marka agoon baad haydo ilaahay waa kaasoo halkaas ku gaarsiiyay ta agoomihii ka waray alam yajidka yatiiman baa sooma faamal yatiima fala taqr aljazaa'u min jinsi al'amal wax wanaagsan baa adigoo agoona lagu sameeyo halkaas lagu gaarsiiyay ta agoon oo dhan ka waray isaguna muxuu yiri maqaalad xikmad oo cajiiba buu reebay ana wa kaafilul yatiimi ka haatayn fil janna aniga iyo cidda agoon xil qaada jannada sida labada farood baan isu daba taagan murdisada iyo fardhaxada inta ay kala dambeeyaan in leeg ayaanu kala dambeynaa waa istaba soconaa jannada marka rasuulka cidda doonaysa inay jannada kula rafiiqdaaba amalka fulinaysa marka agoonkii waa in la wax lagu talo wixiisana loo hagaajiyo wax tar mooyaane aan waxyeelo lagu noqon xoolihiisa agoonka waxa loo maamuli karaa wixii isaga wax u taraya una dan u ah wixii waxyeelo ku ahida qahriga la diiday baa noqonaya culimadu waxay isla waafaqsan agoonta qofka xoolahooda u maamulaya wuxuu ugu maamuli karaa wixii isaga manfaco u ah ee dheef ay uga soo baxayso laakiin wixii waxyeelo ku ah waa laga deynaya sadaqana lagama bixinayo magna lagama bixinayo sooriyana lagama bixinayo goyna lagama bixinayo iyo qaaraan toona sakada iyo masruufkiisa iyo waxyaabahaas laga bixin doona laakiin wixii kale waa laga xilay aadu salaam wa amma sa'ila fala tanhar sa'ilkii wax ku weydiistaynaha hurufin oo ha guulguulin waa kelma tayiba oo inaad kaga baxda fala takun jabbaran wala mutakabbiran wala faahishan wala faddan ala du'afaa min ibadillah adoomaha ilaahay ha dhibin kuwooda ugu masaakis lisa'il haqqun wa in jaa ala faras wa hadithku kulli wa hasan iyo daciif labada weeyda qofka su'aal islaamku uu diiday ka maarmi karaya ka wax weydiisana hal siiyay hadii aan markaa waxba loo helaynina kelmad wanaagsan ayaa la oranaya oo markaa lagu jawaabayo wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ilaahaga nicmadiisana ku mahadnaq waa amarka saddexaad intaasoo nicmaaba ilaahay ugu soo manna sheeg nicmadii dunyada iyo nicmadii diinta iyo nicmadii qaninimada iyo nicmadii weelka ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmada ilaahay ku mahadnaq sida daraadeed bay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam mahadnaqiisu ahaa dad oo dhanka ugu mahadnaq badan buu ahaa rasuulka ilaahay laa yashkuru ilaaha man laa yashkuru innaas maqaaladaas uu dadka uga tegay xadiidkaas waa xasan baa lagu tilmaamay darajadiisa ilaahay uma mahadnaqo qofkaan dadka u mahadnaq qofka muuminka ahi gaal iyo islaamba cidii u mahadnaqda shukran laka buu leeyahay shukran waad mahadsantahay Soomaalida ku adag ee aan ku jirin dhaqankooda ilaahay baa ina baraya rasuulka Allah faray calayhi salaatu wasalaam nicmada ilaahay ku mahadnaqaas waa dabarka nicmada markaynu nicmo helo nicmadaas hal dabarun bay leedahay dabarka hadii lagu xidhana way joogaysaa way ku fadhiyaysaa dabarka hadii laga furana way iska boodaysaa وهذا عقد dabarkaas ciqaalka lagu xidhayaana waa ashkuru lillahi subhanahu وحكم مرقاتي قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم تي هورنا uu ku deynaya waan kordhinay marka nicmo la helo nicmo maal baa la helay nicmo nabadgeliya la helay waxa la helay nicmo cilmi nicmo dhinacyo kala duwana dabeetana dhinaca xun baynu la kacnay hay'ati maalka waa lagu tumanaya inamadii hablihi baa isla boodaya hudheeladii habeenkii la isla rogaya kii khamriga cabaya waalida anigu firiba kii soo dhaadhacay isqaawinaya ama wax sawirayay ayaa isaguna muxuu leeyahay damasho waa dimuqraadiyad mid waliba dhanku doon u riday de nicmadaas jiri mayso balaayo baas baa ka dambeynaya marka nicmo la doonayo inay sii joogto ilaahay baa keenay isna wuxuu waa ma bi ni'mati rabbika fahadith waxa doonaysa ayadu nabigu bay ku goonitay hadaa tidaahdo quraanku taasina waa reer maka taasina waa nabi maxamed deena uu quraan bay noqonay marka quraanku waa noolyahay quraanku sidoo nabiga asxaabta wala hadlay inagana ay noola hadlay marka waxaad ka soo qaadaan wa amma bi ni'mati rabbika fahadith adiga into si toos lagu la hadlay ilaahay boqorka uu kula hadlay nicmo xoolaad ku siiyo ku maadna nicmo nabadgelyada uu siiyo sida fiican uu isticmaal nicmo dad baa lagu siiyo sida fiican uu isticmaal wax wal oo ilaahay uu ku siiyo dheeraadaha ummad kugu majeeranaysa fahadith baa kala taaba fahadith ma aha oo kaliya afka ka sheeg alhamdulillah haduu xumaanta booshaaqaya dad
وحمانتا ay dhaxta baalanayaan alxamdulillaah ida badinayaan ka war maya nicmadu waxay noqotaa bil qalbi wa bil fi'li wal qawl qalbiga iyo qowlka iyo ficilka ta ugu muhiimsanna waa nicmada ficilka iyo dhaqanka jawaabta amaliga ah ee waaqica ka muuqanaysa taasaa mahadnaq lagu tilmaamaa nicmada amalka u muhiimsan sida ilaahay buu yiri i'malu ala daawud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur eeg aayado firs i'malu ala daawud shukran reer daawud oo shukri daraadi amal sameeya adoomaha intii ilaahay uu mahadnaqday way yartahay shukrigi waxa ka dhigtaan amal ka dhiga marka ilaahay aduu nicmayna siiyo wuu ineegaya digiyo danta dad ku dhaca waxa weeye waxaad ka akhriyaysaa suuratu sala ayaad ka akhriyaysaa jawaabaha ilaahay ummadaha uu siiyo had iyo jeer marka ay nicmada ilaahay uu siiyo hoos u eegi waayaan ay meel kale ku faruur xidhan meel kale ayaa wuxuu ga hilaacayaan oo gafuurka ay u taagayaan nicmada ilaahayna si xun bay u isticmaalayaan marka jawaabta aynu ka bixinayna nicmada ilaahay waa in loo isticmaalo cibaadada waa in loo isticmaalo horumarka diinta ilaahay horumarka dadka waxtarkooda wax kordhinta alla ka cabsiga oo laga daaya xaraanta iyo ifsaadka iyo cid lagu karbaasho ama lagu qaybiyo ama lagu xumeeyo wallahu a'lam